إلهي حدود في عن هدان ليا لأنه نولش أدونك وينو معانا ما أنت دتك ودن وحيلي نولش وفهم لعناهي نولش وحنو فهم لعناهي وأمحي حدودك إنك إلهي نود حييبا ماشى كبحي حدودك هدان هجاجي سنو نولش أدونك يتأخر إلهي بنو هجاجين إلهي بقرآن كيسي إنه وش يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغى إلهي كعب صدا أمورتي سؤال وحنا كدجنا فضيد من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقولي قفك همجي سكدج الدنيا وحو كفكر يا والدنيا وحو كشغين يا والدنيا وحو كصيحنا يا والدنيا وحو كسوكع يا والدنيا وحو كهلا يا والدنيا وحو إيجا يا والدنيا qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisoo dhan ilaahay bariye galbeed buu kaga kala sheedinaya nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxayn baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kale ma helo buu rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya صلاة بو إلالينيا صون كيبو إلالينيا حق دتكو سكا إلالينيا حق جارك سو إلالينيا حق دتكو لنو لهي بسكا إلالينيا دنبيغو ير إلالينيا وناق أيو كشقينيا هميغي سو آخرو عمل آخر دي سكت داوعيا واكد دكتون يحي عمل آخر دي سبت بادين ينا ودي رنيه قبنا يا مر والبا نك هميغي سكت دقابو نبيغو آخرو قلبي سا إلهي كدقا غني هضن تنمى قلبك إلهي سياه قفكم ماشي وكان نقضى عيدنا وقلبك ماشي غني كان نقضى أنا وهالكي وقلبكم يقول عن مدن هبل ونن مليون ديرة ورقضها ما هو واحد بن آذن كقلبك يسا غنى ذا قلنا يا غنى ذا قلبك وحق ليا وأمرك قلبك وجست إلهي معرفة دي سي آخر ذا وين كده همي يسا نك كدك أبو نبي قول آخره قلبك إلهي هضن تنمى وقبو حياه arrimihi soo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoos timaada rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma aduu ku daba socda misaada daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tirahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maan wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doonta waxaa loo isticmaalaa beriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adiga iyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakar as-siddiiq radiyallahu anhu maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuthmaan bin cafaan maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir bin cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa
saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen, cuqaal bay lahaayeen, shucaraa bay lahaayeen, dhakhtarray lahaayeen, umaraa bay lahaayeen, fuqaraa bay lahaayeen, mucallimiin bay lahaayeen, culamay lahaayeen, ogaasyay lahaayeen. laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu, xaggaa way ka wada sinaayeen. kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen, si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen. cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay mataqaanaa inay adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan, xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan, aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn. abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam, wuxuu ahaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi. alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay. cumar baa arkay ninkoo sii socda, kaale yaa abaabakar ilaa ayna? wuxuu idhi de waa shaqo tegaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin, soo anuu ka mas-uul mayho ilaahay weydiin maayo. muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax, khaliifata rasuulillaah weeyaan. mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan, meesha ma soo dhigan isagu. innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay? ar muxuu socdaa? waa lacag fiican heshid, meelahana si fiican ha u jajabsatid, ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe. iyaku sidaa ma ahayn. mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan. mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay, waa adeeg ummadeed, ummadday u adeegayaan. ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo. abubakar uu yaabay, war ciyaalkayga reerkaygina ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule, anna kaa shuuraynaynay adu noqo, horta halkaa fadhiiso, ma haleelaysid haddee toole. waa la shuureeyey, waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan, neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan. 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abi bakr sidiiq allaha raalli ka noqdee, inankiisii cabdiraxmaan ibni abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday. cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi. markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku wadaa jooji? wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxa adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina, dhulka iibiya, lacagta ka soo baxda dhulka 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi, inta inii soo hadhanay ninku dhaxal u qaybtama buu yidhi. cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay, war maxaad leedahay? aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee? baytalmaalka. oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen uu reerka siinayay 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay. dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo. cumar binu khadaab baa loo keenay, cumar uu ooyey. abubakr sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay cumar, wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi, waadna daalisay buu ka yidhi. sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi. 2 sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas. xukaamta zamankeenna ka warrama. waxaasi maxaa keenay? waa alla ka baq, ilaahay bay ka cabsanayeen, aakhiraday ku xisaabtamayeen. markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey, xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey. koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey, xaqii dadkana uu iska ilaaliyey. waa koogii faqiirka ahaa.
سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سي كدر صديتري ولي بعيل كان آني قالي يدو هدام له أقو ساقا اسكاله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تاو ياري سعيد وطبعا كي جنة اللو بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور مركاسولي والله قاسو دعوه يا سعيدو ويا قاسو دعوه سلانتا أبا كاسو دعوه الدغضة وما حي قاسو دعوتي دول إيادو أيلادا هايباد قادة تيبي يلا ليه ومع العيال كأيضا لي مركاسولي يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوله دول أولهين تاكد دول أولهين نك الظلم كو قاتبوا نبي يري مالك قيامة وحل لقو عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لقو حلو آيا قورت لو قلين اللورن دونا جيدو لكع لما نكعي كريو ما نو حديث كنبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولتها حق بني آدنين عن ظلم كو قاتن إلهو حدي يقول بين أبو راني سبو يدي عندها كقاد حدلن أضو عندها كقاد موياني هل كان أي شيء سيله قد البيودي قولك وقع كعي هقادة تبوليسية وإن دباش دم مركاسي أورنجرتي ويهبارك سعيد بايقول داعي ويهبارك سعيد بن الزيد بايقول داعي أيضا إن دلو دولكي أي كشيغة إساقد وريقي سو إن دلا أي عيالكي كود دعدي بل عيالكي بي كود دعدي لقد ما بسو سارين هالكي بقبريكي لقد دقول لقواس حق بني آدم كو عيار ما أنو النبي محمد كم مغلي تاكا إن لأيقو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول باقيامها قورت اللوغليا أو لقو إرادا لك عوجيد لما نكعي كربو النبي قولوا مجيدي كرايو ما أنو حديث كان نبي محمد كم مغلي ما يقولها عثمان وين دول بني آدم حق درك كقادا إلهو هذا يقول بين أبو راني يسيبوا عندها كقاد هل كان إلهو كد البيوت أحاسوا الله كبق وحب بني آدم كحقه كاجو جنيه ومحي والله كبق مركز إلهي كو حساب تميسين وكو أركايو وكو مغلايو آخر إني جرتنا يكو هرتالو حق بني آدم إن أبدا كو ديرن ميسد لكن غور موقفك بني آدم كو إلهي إنه ظلم كقلا بني آدم كان ظلم كقلا وأمركو إلهي إلوبو آخرتنا وخدك كسارو سادرتي هذول عليال إلهي إنها نصون نقولها توبت كأنه إن يربان الديود جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بري تولي نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبو ماشى قبرقاق ونقون كما ورقبنا مركا ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره مديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بأشياء قيامه مديرو حقنا وكادر يحي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارنت وزدود حي بعثت أنا والساعة كهاتين لا ولا فرض نبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا ابو نبي قسكو قبتي مركا ابو نبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لا ولا فرض اسكو خيغا ما اسكو خيغنا ابو رسولك يري مركا إلهي نحن صار نقول هكبرنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دينتي إننا ما ركتاني هنكشقينه وشقد دينته علماء يا معلمين توكلية كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قف كستو مسلم الدين الحلبة كسارا إن النفط هذا إصلاح صح وواجب إن أمة إصلاح يجينا ددالك أتكقب قادتنا وواجب دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية ويان وانا ضرورة بشرية ودما مات دعوة أوباهن مسلم كيف أوباهن إن صلاة الله يرو
oo masjidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas'uuliyadana xilkaana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummadiisa saaroo yidhi laa nabiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiga shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirka ee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii faruba muballaqin awcaa min saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunka o dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna in diinteena ka shaqeyno wada niyooda insha allah dad badan oo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona soo ducayn mayna insha allah dambigeena allah dhaaf dambiga waalidiinteena allah dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeena allah shaafiyo mawtaadkeena allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo taacada allah inoo macaaneeyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada allah tuso muslimiinta meel ay joogaan muwaafiqiin midnimana allah siiyo nin walba allu ka kurbaysana kurbada allah ka qaado dad badan oo xaadiriin iyo kuwa qaybin oo duca dalbay baa jire mid walba allu ka kurbaysana ilaahu adaaga kurbada ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu ha nagu qaban yaa allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan haddaad noo dembi dhaafan ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra